Shabakadda Global Firepower oo inta badan wax ka qorta awoodaha dalalka caalamka ayaa waxay warbixin ka soo saartay sanadkan 2020 in militariga Masar uu yahay kan sagaalaad ugu awooda badan dunida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo markale barnaamijkeena taariikhda dunida. Maanta waxaan isbardhig ku samayn doonaa iyo awood badan Masar iyo Itoobiya dhanka militariga. Khilaaf u dhexeeya dalalka Masar iyo Itoobiya ee salka ku haya biyo-xireenka weyn ee xukuumadda Addis Ababa ka dhisayso webiga Blue Nile ayaa maalmihii dambe sii xogeystay. Itoobiya ayaa 26 February si kumid gaar ah u hakisay ka qaybgalka wada hadallo oo Mareykanku garwadeen ka ahaa oo ku aadanaa buuxinta iyo maamulka biyo-xireenkaasi. Waxa ay codsatay in muddo dheer ah la siiyo si ay uga soo tashato heshiiska hordhaca. Ayadoo 70% la dhammaystiray ee dhismaha biyo-xireenka ayaa waxaa la filayaa in bisha July la bilaabo buuxinta. waxaan aad u sii yaraanaya waqtiga lagu dhammaystiri karo wada hadallada. Itoobiya ayaa u aragta in Mareykanku aanu dhexdhexaad ka ahayn wada xaajoodka oo la sifan yahay dalka Masar, sida ay sheegtay jiridda Foreign Policy. Addis Ababa ayaa dhowr jeer ku goodisay inay difaacan doonto biyo-xireenka ayna xaq u leedahay ka faa'iidaysiga biyaha webiga. Arrintan ayaa timid kadib markii Mareykanku uu sheegay in dhismaha biyo-xireenka aanan la dhammaystiri karin ilaa ay inta heshiis rasmi ah laga gaaro. Hase yeeshee dowladda Masar ayaa ku doodaysa in haddii Itoobiya dhammaystirto biyo-xireenkaasi uu saameyn ku yeelan karo biyaha ay Masar ka hesho webiga. Haddaba yaa awood badan militari ahaan Masar iyo Itoobiya. Marka ay timaado awoodaha militari ee dalalka Masar iyo Itoobiya, militariga Masar waxaa lagu qiimeeyay inuu ka mid yahay 10ka dal ugu awooda badan caalamka dhanka militariga. Shabakadda Global Firepower oo inta badan wax ka qorta awoodaha dalalka caalamka ayaa waxay warbixin ka soo saartay sanadkan 2020 in militariga Masar uu yahay kan sagaalaad ugu awooda badan dunida, halka militariga Itoobiya uu yahay kan 6aad ee ugu awooda badan dunida. Awoodda militari ee Masar. Wargeyska Forbes ayaa militariga waddanka Masar ku tilmaamay kan ugu awooda badan bariga dhexe marka laga soo tago Turkiga oo ah dalka ugu awooda badan gobolkaas. Shacabka dalka Masar oo ku dhow 100 milyan oo qof ayaa tirada dadka dagaalami kara. Waxa uu wargeysku Global Firepower ku qiyaasay inay yihiin 43 milyan oo qof, halka kuwa howlgalka horgeli kara ay gaarayaan 36 milyan oo qof. Ciidanka militariga ee dhulka ee u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga dalka Masar ayaa tiradoodu gaaraysa 920,000 oo askari, halka ciidamada hadda howlgala ay tiradoodu gaarayso 440,000 oo askari. Dowladda Masar ayaa sidoo kale haysata ciidamo kayd ah oo gaaraya 440,000 oo askari, kuwaas oo haddii loo baahdo howlgeli kara saacad walba. Global Firepower waxa ay soo warisay in Masar ay haysato 4,290 oo ah taangiyada dagaalka, 111,700 oo ah baabuurta gaashaaban, 2,189 oo ah gantaalada goobta laga rido, iyo 1,084 oo ah madaafiicda wax duqeeya. Dhanka ciidanka badda ee Masar, waxa ay shabakaddu Global Firepower ku sheegtay in agabka ay haystaan uu guud ahaan gaarayo 316. Ciidanka badda ee Masar ayaa haysta 2 markab oo nooca diyaaradaha qaada ah, kuwaas oo ay adag tahay in la helo dal kale oo Afrikaan ah oo haysta. Waxa ay xukuumadda Qaahire haysataa oo kale 2 markab oo ah kuwa dagaalka, 8 gujis oo ah kuwa badda hoosteeda maquura, 45 markab oo ah kuwa kormeera xeebaha, iyo 31 maraakiib oo ah nooca badda ku aasay miinooyinka ama burburiya miinooyinka badda lagu aaso. Militariga Masar ayaa sanadkii waxa lagu qarash gareeyaa lacag dhan $3 bilyan oo dollar, waxaana qayb ahaan lacagtaas bixiya dowladda Mareykanka. Ciidanka cirka ee Masar ayaa haysta 215 diyaaradood oo nooca dagaalka ah, 59 diyaaradaha militariga ee xamuulka qaada ah, 387 oo ah diyaaradaha lagu tababaro ciidamada cirka, 294 oo ah diyaaradaha kumaati u kaca ee helikobtarka loo yaqaano, iyo 81 oo ah helikobtarada wax weerara. Awoodda militariga Itoobiya. Itoobiya oo ka mid ah dalalka Geeska Afrika ugu awooda badan ayaa tirada dadka ku nool waxay gaarayaan 108 milyan oo ruux. Dadka awoodi kara inay dagaalamaan
ayaa lagu qiyaasay 41 milyan oo qof, halka kuwa dagaal gari kara ee haatan u diiwaan gashay wasaaradda gaashaandhigga dalkaas ay gaarayaan inta u dhaxaysa 162,000 oo askari ilaa 300,000 oo askari. Militariga dalka Itoobiya ayaa GFB ku soo wariyay in ay haysato 400 oo taangiyada dagaalka ah, 114 oo ah baabuurta gaashaaman ee dagaalka, 67 gantaal dhulka lagu rakibo ee artilleriga loo yaqaano, iyo 183 oo ah madaafiicda wax duqeeya. Ciidanka cirka Itoobiya waxaa la sheegayaa inay yihiin kan ugu awoodda badan marka loo eego kuwa Geeska Afrika. Waxaa dhowaan ciidankooda ay xoojiyeen hanaanka gantaalada difaaca cirka oo ay ka soo iibsadeen dalka Faransiiska. Diyaaradaha dagaalka Itoobiya ayaa lagu qiyaasay 24 diyaaradood oo ah kuwa miiga loo yaqaano, 9 diyaaradood oo ah kuwa xamuulka qaada, 20 diyaaradood oo ah kuwa lagu tababaro ciidamada cirka, 33 diyaaradood oo ah nooca kumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopter-ka, iyo 8 noocyadaas ah oo kuwa wax duqeeya ah. Itoobiya ma lahan wax ciidan bad ah maadaama aysan lahayn bad. Qaar ka mid ah warbaahinta Itoobiya ayaa sanadkii hore ku soo warramay in dowladda Faransiiska ay Itoobiya ka caawinayso dib u dhiska ciidanka badda oo la kala diray sanadkii 1991 kadib markii Eritrea ka madax bannaanaatay Itoobiya, halkaas oo saldhig u ahayd ciidanka Itoobiya. Inkastoo dowladda Itoobiya aysan si rasmi ah u shaacin halka uu noqonayo saldhigga ciidamada badda, haddana sanadihii la soo dhaafay waxaa jiray warar sheegaya in saldhig looga dhigi doono dalalka Eritrea, Djibouti ama Suudaan, iyadoo dadka qaarna ay sheegayaan Soomaaliya. Wargeyska oo soo xiganaya ilo dowladda ah ayaa sheegay in Itoobiya ay go'aansatay in saldhig ciidanka badda ah laga dhiso dalka Djibouti. Sida uu wargeyskaas qoray, arrintan waxaa laga wada hadlay kulankii ugu dambeeyay ee uu Abiy Ahmed ku tagay dalka Djibouti, halkaas oo kula kulmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Hase yeeshee, warkaas waxaa beeniyay safiirka Djibouti u fadhiya dalka Itoobiya, Maxamed Idris Faarax, oo yiri warkaas waa war sharciyada Itoobiya dhex socda, kuwaas oo sheegaya in ciidanka badda Itoobiya ay saldhig ku yeelan doonaan dalka Djibouti. Warkaas ma ahan mid rasmi ah, ayuu yiri. Maxamed Idris Faarax ayaa intaas ku daray, ma hayno wax heshiis ah oo laba dowladood isla gaareen. Haddii ay noqoto in heshiis la gaarana, waxay noqonaysaa heshiis dhexgeesood ah oo dhex mara Faransiiska, Djibouti iyo Itoobiya.